waxaan la hadlayaa wiilasha Soomaaliyeed waxaan kala hadlayaa ku faa'iideynayaa bisha Ramadaan fadligeeda inaad iska dhaaftaan gabdhaha yararka oo ka dawreegeysaan oo aad guursataan garoobada waayo garoobadu nabigeena u duceeyay calayhi salaatu wasalaam marka hal iska dhaaf gabdhaha yararka oo luuqda iyo meelaha la gelitaan dadka wax garadka ayo macnaha fahmin kara guursada tad discount inay soo biyaan waa golyihiin inay discount soo biyaan way awoodaan waayo hotel lagu dhigo aroos iyo qarash la bixiyo iyo lacag iyo wax qasaar lacagtas in labadiina isku afgarataan abdigan wax weeysan xitaa discount macnaha ayada waxa la wadaagayso oo waxeeda wasi shar gareynayso waayo qof way arag okay mid kale in sheegay waxa waa hada gabar yar oo 15 jir iyo waxaas ma garato waayo guriga hooyada joogta walaalaheeda midba budu dhinac kala taagan dhan qoftan waa qof wax garada oo reerka iyo waxa dhan ogaan karto maamo weyna intay gabar yar ameena la galeeyay gabar yarta iska dhaafa bisha Ramadaan fadligeeda iyo dadkii nabiga u duceeyay calayhi salaatu wasalaam askoona balanteeno asaas u loo faa'iido ducadii nabiga iyadoo naag helay waxa kale oo sheegaya haasdheynina Ramadaan kaliya oo mooda waa Ramadaan kala soo socdo kana duu dhamaadkii kala waa taagan yahay صح سامحان ميدا كله reerka hal ogaado hal dhaqdo gabdhahana mar labaad yaan leeytay balanteenuna waa garoobada iska day gabdhaha yararka balanteenu waa garoobada xitaa hadii macnaha ay xasin noqdaan oo qof adiga kuma tali kara oo ay araga